tagaasi duusha iyo muuqaalo been abuur ah oo laga sameeyay madaxa shirkadda Facebook iyo qodobo kale ayaanu qaybta tiknoolajiyadda iyo toddobaadka ee caawa idinkugu haynaa. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa eegaya. magaalada Melbourne ee Australia ayaa noqonaysa magaaladii ugu horeysay ee aan Mareykan ahayn ee lagu tijaabiyo adeega taksiga duule ee Uber Air horay ayaa loogu tijaabiyey magaalooyinka Dallas iyo Los Angeles. dhowr shirkadood ayaa tagaasida duusha samaynaya oo mustaqbalka la filayo in ay nooc ka mid ah gaadiidka noqdaan. Uber waxay sheegeen in ay ka caawinayaan magaalooyinka yaraynta ciriiriga waddooyinka. duulimaadyo tijaabo ah waxaa la filayaa in ay bilowdaan sanadka dambe. shirkadda WhatsApp ayaa ku dhawaaqday in ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto dadka dira fariimaha marin habaabinta ah. dhammaadka sanadka ayay bilaabanaysaa tallaabadaas. fariimaha WhatsApp waxaa adduunka dhan adeegsaday dad gaaraya 5 milyan. horay ayay u xadiday inta jeer uu qofka diri karo fariin, taas oo looga gol leeyahay in lagu joojiyo faafinta wararka been abuurka ah. shirkad dadka gaarsiisa cuntada oo fadhigeedu yahay UK ayaa $21 milyan ku maalgelinaysa samaynta beero sida dabaqyada isu saaran. qudaarta ayaa lagu beerayaa iskafaallooyin gudaha ku yaal iyadoo si taxaddar leh loo maamulayo cimilada. taasi waxay yaraynaysaa safarka gaadiidka iyadoo beeraha ay ku dhinac ooli doonaan xarumaha qaybinta. fakarka ayaa ah haddii cuntadaasi marka la guro ay saacad ku gaari karto guryaha. tani waxay u eg tahay Mark Zuckerberg oo ah madaxa shirkadda Facebook oo ka hadlaya janal wararka tabiya. balse dhabtii sidaa ma aha ee waa muuqaal gebi ahaanba been abuur ah. waxa uu qayb ka yahay bandhig farshaxan oo London ka dhacaya. dadka farshaxanada sameeya ayaa samaynaya muuqaallo si weyn been abuur u ah oo laga samaynayo dad caan ah oo kala duwan. hadda waxay sidoo kale geliyeen barta Instagram. waxyaabaha beenta sida kuwan oo kale waxa ay daboolayaan dhaqdhaqaaqa iyo codka muuqaal jiray si ay uga dhigaan mid dhab ah.